asxaabta qiimaha iyo qaayaha la soo dhawaada markale cashirkeena. waxaan idinka raali gelinayaa labadii maalin iga maqnaay. cashirka maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaan shaashad madow ugu dhigan karaa WhatsApp-ka. cashirkan inta aan u guda gelin waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe dhaadaan. aan u guda galno cashirka. marka hore aan soo furno WhatsApp. marka hadda waa ujeedin weli shaashad madow ma shaashad cad waa hadda. waxaan rabnaa shaashadan cad inaan ka dhigno shaashad madow. waxaad taabanaysaa meeshan kore ee geeska ah ee saddexda dhibcood. kabacdi waxaad dooranaysaa setting-ka. markaas waxaad ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay chatiska. haddana waxaad dooranaysaa meesha kore ee ku qoran tahay theme. waa kan hadda qaybtan hadda oo noo saaran yahay tigta ee light-ka ah waa shaashada cad. haddaan tigta meesha shaashada cad aan ka qaado aan saaro dhag waxay noqonaysaa shaashad madow. aan browsable aan doorano dhag okay dhahan. waa kaas way isbedeshay shaashadii waxay isku bedeshay shaashad madow. oo jeedin shaashad madow aad isku bedeshay oo taas sida u jeedin. marka waxaan rabnaa markii inaan ka qaadno. marka ka qaadayso waxaad tagaysaa isla saddexda dhibcood ee geeska. waxaad kasii dooranaysaa setting. kabacdi waxaad dooranaysaa meesha dhag ee chats. waatana calaamadii theme aad dooranaysaa. meeshan ay ku qoran tahay dhagayna dooran tahay light aan ka dhigayna. marka ka dhigna shaashadii sidoo hore ayay noqonaysaa cadaan. waxaan filayaa inaan wax badan ka faa'iiday maadaama hadda xilliyada habeenkii oo kale ay ku fiican tahay shaashada madow. habeenkii waxaa waaye shaashada madow iftiinka ayay celinaysaa. shaashada cad laakiin iftiinka habeenkii indhaha uma roona. maadaama habeenkii oo kale shaashada madow kugu fiican tahay halkaas ayaa shaashada madow ka saaran kartaa. marka waxaan filayaa inaad fahantay hadda. waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe dhahdaan. aadan ka iloobin calaamada like, share, comment. maadaama adinka dhiirigelin ii tihiin waxaan filayaa inaad channel kor u qaadi doontaan si aan dhiirigelin iigu noqoto aan wax badan idin faa'iideeyo intaan aqoontayda ay tahay aan ii faa'iideeyo. laakiin waxaan idinka codsanayaa inaad channelka sar u qaadaan oo ani ii dhiirigelisaan maadaama adinka aan wax idinku ahay. dhiirigelintiina waxaan u baahanahay kaliya waxa waaye dhiirigelintiina inaad adinka dhiirigelisaan. wax kale uma baahni. waxa waaye hadday dhiirigelisaan aniga maanta waxa waaye sare waa isku qaadi karaa ilaa moogtahay qofku markuu meel yaalo oo la dhiirigeliyo sare isku qaadaa. marka waa wixii horumari lahaa waa adinka dhiirigelintiina. aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.